shirkii golaha wadatashiga qaranka ayaa maanta mar kale dib u furmay. shirkan oo dhinacyadii qaybta ka ahaa ee ka qayb galay intii shirka ku hadhay oo ahayd dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay isku xulufada yihiin marka laga reebo maamulka Jubbaland oo ka fallaagoobay isbahaysigaas. waxa ay ku dadaalayaan dhinacyadani in ay shirkan ka badbaadiyaan fashil iyo guuldarro oo ugu yaraan ay shirkan ka soo saaraan warmurtiyeed. haddaba shirkii maanta ayuu mar kale dib u furmay. waxaa shirkan furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. shirkan ayaa ajandihiisa lagu sheegay in lagaga tashanayo nidaamka dimuqraadiyiinta dalka iyo qodobo kale. haddaba waxaynu warbixinteenna ku soo qaadan doonaa dhinacyada shirkan ka qayb galaya iyo dhinacyada kale ee shirkan bannaanka ka jooga, fursadaha ay hadda haystaan ee dhinac waliba dhinaca kale kaga guulaysan karo. waxaynu ku bilaabaynaa dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadan ay waqti xaadirkan isku xulufada yihiin Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. haddaba dhinacan oo la isku yidhaahdo golaha wadatashiga qaranka ee muxaafidka ah ayaa aynu hadda fiirin doonaa fursadaha qaaliga ah ee hadda ay haystaan ee ay kaga guulaysan karaan dhinacyada kale, oo haddii fursadahan hadda ay lumiyaan ay ka guulaysan doonaan dhinacyada kale ee ka soo horjeeda. dabcan fursadahani waa u muhiim dhinacyadan inay ka faa'iidaystaan, ama haddii taageerayaashoodu halkan ay ka dhegaystaan inay u gudbiyaan muhiim ayay u tahay. sababtoo ah halkan waxaan ku soo bandhignaa mar walba ku falanqaynaa xaaladaha siyaasadda Soomaaliya iyo Geeska Afrika, iyadoo warbaahintani ayna ahayn warbaahin dhinac u caadifadaysan oo u janjeeda, balse ujeedadeedu ay tahay inay dadweynaha ku xidhan ay gaadhsiiso xaqiiqooyinka jira, dhacdooyinka socda, fursadaha la haysto, kuwa lagu guuldaraystay, dhinacyada siyaasadda ku saaqiday iyo dhinacyada ay suurtagal tahay inay siyaasadda ka faa'iidaystaan oo waqti xaadirkan fursado qaali ah haysta. tan ujeedadeedu ma aha marka aan fursadahan soo bandhigayno inay yihiin kuwa fiican oo xalka Soomaaliya faa'iido ah, balse macnaheedu waxay tahay kuwa loolanku ka dhexeeyo iyo sida ay u kala adkaan karaan ugu yaraan, maadaama hadda ay shacabka Soomaaliyeed iyo daawadayaal ay ka yihiin filinkan socda ee mar walba soo noqda. haddaba dhinacan koowaad fursadaha ay haystaan waxaa ugu horeeya waa waqtiga ayaa muhiim ah. waxay haystaan waqti kooban oo ku beegan waqtiga muddaxileedka dowladdan uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud. waqtigu marka loolankan oo kale uu dhacayo ma aha mid sahlan. waqtigu waxa uu ahaa midkii meesha ka saaray dowladdii hore ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dagaalkii u weynaa ee la galay markaas waxa uu ahaa loolan ku saabsan dhinaca waqtiga. dhinacyadii markaas ka soo horjeeday dowladdii federaalka ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hubka ugu culus ee ay dowladdaasu adeegsadeen waxa uu ahaa in dowladdii waqtigeeda laga lumiyo, maalmuhu ay jiitamaan, isjiidjiidasho dhalanteed ka soo bilowday shirkii 17 Sebtembar lagu soo gaarsiiyo 15 May 2022. taas oo jilbaha dhulka ugu dhufatay dowladdii hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maaweelada waqti lumiska ah lagaga guulaystay. mid kale dagaalka koowaad ee ku wajahan xuruufadan ayaa isna ah waqtiga. dabcan waqtiga ayaa laga lumin doonaa. Axmed Madoobe waqtiga ayuu ka soo lumiyey isbahaysiga. 1 sano oo been guur ah ayuu Axmed Madoobe ka soo cunay isbahaysiga. markan Axmed Madoobe wuxuu garka u soo cadaystay oo uu Muqdisho u yimid 1 sano oo kale ama 1 sano iyo barka u haray dowladda Xasan Sheekh Maxamuud in waqtiga laga lumiyo. dabcan haddaba maalmo badan oo khiyaali ah ayaa Axmed Madoobe ka cunay Xasan Sheekh Maxamuudka siyaasadda ku fashilmay ee aan aqoonin qaabka isaga lagula dagaalamayo, balse isagu kaliya yaqaana
qaabka uu wax u weeraro dhinacyo isagu uu markaas doonayo inuu la dagaalamo sida loo weeraro xasan sheekh maxamuud waa yaqaana laakiin khataraha ku xeeran iyo xeeladaha lagaga baxo midna waxba kama yaqaan waxba kama soo baran maalmihiisii hore ee mutaxileedka hadda waqti ayaa uu ka soo cunay axmed madoobe beenguur ah hal sana ah oo uu hadiyadu siiyey inta kalena axmed madoobe wuxuu u fadhiyaa inuu waqtiga ka cuno xasan sheekh maxamuud iyo xulafadiisa hadda wuxuu ka soo cunay sanadkii marka laga yimaado maalmo kale oo tirsan oo ka soo bilowda shirkan maalintii uu soo bilowday ilaa iyo hadda oo la marayo 26 bishan Oktoobar intaas xasan sheekh wuxuu ku lumiyey inuu axmed madoobe shirka ku soo celiyo inuu isagu elgooyin u diro inuu xamse soo joogsado ilaa shirkii uu fashilmin axmed madoobe maalmo halkan iska joogo maalmo kale kismaayo uu dhoolla tusiya ka sameeyo jimis isugaan halkaa u tago kenya loo soo maro waa maalmo lumay maalmo kale ayuu axmed madoobe diyaar yahay inuu qaato oo lagu baaqayo inuu shirka ku soo laabto in rajo laga qabo siciid dani oo bannaanka jooga ayaa isaguna fursaddaas dhinaciisa isha ku haya haddaba waqtigaas waa fursadda koowaad ee hadda isbahaysigan ku magacaaban golaha wadatashiga qaranku ama ay ku guulaysan karaan ama lagaga guulaysan karo haddii ay waqti lumiskaas albaabadooda iska xidhaan oo isbahaysigani waqtigan kooban ee haystaan ay ka faa'iidaystaan oo haddiiba ay doonaan muddo kororsi sharci darra ah ha samaystaane muddo kororsigaas uu garab socdo shaqooyinka ay dowladdu soo bandhigtay inay haddaba bilaabaan waxa ay u noqon kartaa fursadda ama dariiqa koowaad ee xasan sheekh iyo xulufadiisu ay ku guulaysan karaan tusaale ahaan hadda shirkan waxaa la filayaa natiijada ka soo bixi doontaa inay noqoto warmurtiyeed marka lasoo ururiyo ay dulucdiisu tahay muddo kororsi hal sana ah iyo qorshaha doorashada ee ay dowladdu wadato in la isku raaco oo la dhaqangeliyo haddii haddaba yoolka uu kaas yahay haddii dowladdan iyo saaxiibada ay isku xulfada yihiin ay qodobkaas daacad ka noqdaan ay bilaabaan inay iska wadaan maalmahooda muddo kororsiga shaqada doorashada ay dowladdu wadato guddiyada doorashada sharciyada halkaas sano lagu dhammaystiro oo dhinacna muddo kororsiga maalmihiisu ka socdaan dhinacna xasan sheekh uu uga faa'iidaysto qorshahan inuu ka hirgeliyo deegaanada ay dowladdu ka taliso iyo deegaanada maamul goboleedada ay isku xulfada yihiin oo waqtigaas aanay iska luminin dowladdan xasan sheekh uu hogaamiyo oo ay ka faa'iidaysato oo xasan sheekh iyo dowladdiisu ay ogaato ama wax ka barato sanadkii hore ee uu axmed madoobe ee guurka iyo barankiga kaga curay waxay noqon kartaa waa qodobka aynu ku tilmaannay ka faa'iidaysiga waqtiga iyo luminta waqtiga oo isbahaysigan golaha wadatashiga faa'iido u ah oo ay ku guulaysan karaan xasan iyo dowladdiisa iyo xulufadan hadda ay ku bahoogeen golaha wadatashiga tallaabada waqtigu muhiim bay u tahay haddii ka faa'iidaystaan daacadna ka noqdaan oo ay ka guulaysanayaan dhinac kale ee bannaanka ka jooga shirkan hadda ay ku midaysan yihiin jilbaha ayaanay dhulka ugu dhufanaya waa qodobka labaad ee isaguna muhiimka ah ee isbahaysigan hadda ku midaysan golaha wadatashiga qaranka haddii ay isbahaysigooda ku guulaystaan ay ku faa'iidaysan karaan kuna guulaysan karaan wuxuu yahay dowladda federaalka Soomaaliya jihooyin fara badan oo dagaal oo ay isku furtay iyadu inay iska soo xidho waxaynu ognahay oo hore warbixinteenna hore aan ugu sheegnay in dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud siyaasad xumadeeda awgeed ay iyadu isku furtay jihooyin fara badan oo dagaal uu kaga socdo oo aan loo baahnayn in waqti xaadirkan ay isku furto hadda marka waxaa la soo gaaray jihadii dagaal ee ay ku habboonayd in ay dowladda xasan sheekh maxamuud ku guulaysato oo ah tan hadda la joogo oo ah si ay qorshaheeda u fuliso inay markaasi isu diyaariso jihada dagaal ee qorshaheeda caqabadda iyo khatarta ku ah inay ku koobnaato oo ah dhinacyadan hadda ka soo horjeeda qorshaha dowladda dowladdu taas ma sugin xasan sheekh maxamuud isagaa weeraro iska shaydaani oo khiyaali ah iska bilaabay meelo aan loo baahnayn inuu weeraraba ku qaado dagaal la iskaga furay dhammaan jihooyinkii dagaal ayaa hadda ku furan
jihadan dagaal ee loo baahnaa inuu diyaar garoobana dhabarka ayuu u jeedi iskaba dhaaf inuu ku xisaabtamee raggii jihada dagaal u diyaar garoobayay inay ku furaan oo Axmed Madoobe ka mid ahaa ayaaba isagu xafiiskiisa uu ku naasnuujin jiray hadda marka haddii uu rabo xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa iyo isbahaysigan uu hadda qorshaynayo inay ku midoobaan magacii golaha wadatashiga qaranka markan si isbahaysigani u guulaysto waxaa xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa qariska tuurka looga baahan yahay inay jihooyinka fara badan ee dagaal ee waqti xaadirkan aan macno badan u samayn doonin inay iska soo xidhaan isla jihooyinkan dagaal ee qariska tuurnimada waxaa ka mid ah xasan sheekh hadda jihooyinka dagaalka isku furay waxaa ka mid ah qaar ka tirsan maamul goboleedyadan isku xulfada yihiin oo ilaa iyo hadda jihooyinkaasi furan yihiin taas oo iyada lafteedu shaki gelin karta sida uu isbahaysiga laftiisu u guulaysan karo sida uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud maamul goboleedadan gacantiisa ku haray ay ku aamini karaan isaguna uga faa'iidaysan karo waxaynu ognahay inuu xasan sheekh maxamuud jiha dagaal iskaga furay maamulka koonfur galbeed iyadoo taasay kula taliyeen mataliyayaashiisa qariska tuurka ah in maamulka koonfur galbeed iyo deegaanadaas weeraro kale lagu qaado waxaa kaloo ka mid ah iyadana jihada dagaal ee qarsoon ee ka socota galmudug oo u dhaxaysa madaxweyne qoorqoor oo hadda hogaamiye galmudug iyo kooxa iyagu raba markaas inay madaxweynahaas xilka kala wareegaan oo ay la wareegaan hogaanka galmudug oo gacan saar ka helaya isla filla Soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa inuu marka hore jihooyinka dagaal ee xulufadiisan hadda uu samaynayo uu iska soo xidho waa si uu rabo haddii uu rabo inuu guulaysto qorshihiisan uu hadda wado hadda inaga macnaheedu ma aha qorshihiisu inuu saxan yahay iyo inaanu saxnayn base waxaan ka hadlaynaa haddiiba xasan uu damacsan yahay qorshihiisa inuu si uu ku hirgeliyo waa inuu iska soo xidhaa jihooyinka dagaal ee ka furan isla xulufadiisan dhexdooda ee isla isaga iyo markaasi la taliyaashiisu ay fureen koonfur galbeed iyo galmudug waa in si uu maamuladan kalsooni u siiyo labadaa jiho ee dagaal uu soo xidho labadan jiho mid waxay ku qotontaa oo keliya sababaha doorashada galmudug iyo qorqoor xukunka laga riixdo jihada dagaal ee koonfur galbeed iyada marna waa doorashada oo xasan sheekh iyo tiimkiisu ay qorshaynayaan in lafta gareen meesha laga saaro oo sababta dagaalka loo furay ay ahayd iyo midda labaad oo ahayd xasan sheekh iyo dowladdiisa maadaama ay isku dhegan yihiin hadda Itoobiya in koonfur galbeed loo sii maro in markaas ciidamada Itoobiya laga saaro meesha ciidan masaari aan koonfur galbeed la geeyo taas oo iyaduna dhalisay jihadan dagaal ee cusub ee dhinacaas ka furan xasan sheekh marka qorshahan hadda uu wato miiska soo saaray kordhinta doorashooyinkan wato dastuurka uu rabo ugu yaraan inay dowladdiisu wax ka beddesho haddii uu rabo qorshayaashaasi inay midho dhal noqdaan waxaa looga baahan yahay jihooyinkaas dagaal inuu iska soo xidho sheekadan isku beddelka masaarida iyo Itoobiyaanka koonfur galbeed ku weeraray sheekadan qorqor xukunka laga riixo taageerayaal filla Soomaaliya ka socda oo xasan u janjeera xukunka hala wareegaan lafta gareen saas oo kale waa inuu xasan marka dagaaladaas gebi ahaanba soo xidhaa uu ku koobnaadaa inuu xoojiyo kalsoonida isbahaysigan hadda uu samaynayo labada saddexaad ee iyadana xasan sheekh maxamuud iyo xulfadiisu ay ku guulaysan karaan ayaa ah mid iyadana geesinimadeeda iyo dhabar adeegeeda iyo hal adeegeeda uu ka go'o oo keliya xasan sheekh maxamuud tani waa midda ugu adag ee markaan xasan sheekh maxamuud soo wajihi doonta haddii uu qodobada hore ku soo guulaysto haddii uu ku soo guulaysto inaanu waqtiga iska lumin haddii uu ku soo guulaysto inuu waqtiga ka faa'iidaysto oo qorshayaashiisa dhaqangelintooda haddaba bilaabo haddii uu ku soo guulaysto jihooyinkan dagaal ee faraha badan inuu iska soo yareeyo oo ugu yaraan uu qaar iska soo xidho oo intaasiba ay dhurbaaxo ku noqon karaan saaxiibada qorshihiisa ka soo horjeeda maamulada Puntland Jubbaland iyo siyaasiyiinta kale ee xukun doonka ahba haddii uu dhurbaaxooyinkaas ku dhufto oo uu noqdo hogaamiye siyaasadahan jaangoyn kara uu ku guulaysanayo waxaa markaa ka hor imanaya dagaalkii saddexaad oo isagana u baahan inuu ku soo afjaro guushiisa kaas oo isaguna ah dagaalka ka iman doona xasan sheekh maxamuud dhinaca beesha caalamka oo iyaguna la safan doona maamul goboleedyadan aan shirka qaybta ka ahayn hogaamiyeyaashan xukun doonka ah waxaana beesha caalamku ay soo jeedin doonaan inay ka soo horjeedaan doorasho hal dhinaca qorshe hal dhinaca inay rabaan
qorshe loo dheeyahay oo ay qayb ka yihiin maamul goboleedyada bannaanka jooga siyaasiyiinta xukundoonka ah. barnaamijkaas ayaa James Swan iyo wakiilada caalamku ay jeebka kala soo bixi doonaan. halkan waa tallaabadii ugu adkayd oo halkii lagaga guuleystay madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. halkan haddii uu ku guuleysto madaxweyne xasan inuu jiribka dhigo uu noqdo madaxweyne hal adag, madaxweyne ka dhameyn kara sheekooyinka khiyaaliga ee hadda uu afuufo ee ah waxaan u taaganahay inaan difaaco madax bannaanida iyo karaamada qaranka Soomaaliyeed. haddii uu marka James Swan iyo qaramada midoobay uu ku qanciyo go'aanka iyo geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya ee ka mid tahay madax bannaanida iyo karaamada qarannimada oo loo baahan yahay in faraha kala baxaan, ay dowladdu jaan goynayso qorshayaasheeda doorasho istiraatiijiyadeed. taas haddii uu ku guuleysto markaan ayay noqon doontaa guusha kama dambaysta ninka uu xasan sheekh maxamuud uu gaari. haddii uuna taas ku guuleysan oo aanu qorshaha jeebkiisa kala soo bixin qorshihiisii hore uuna ka dhamayn ee ahayd sharciga caalamku aniga gacmaha igama xidhay, hadda kamana dhamayn ogsoonow iska beenguur bay ahayd, sharciga caalamku gacmuhu ka xidhay. haddana haddii xasan sheekh maxamuud uu gacmaha ka xidhi doono qawaaniintaasi beesha caalamku aanu lahayn awood uu dalkiisa go'aan ku gaari karo, isagu waxaa loo baahan yahay inaanu ciyaartan waqti badan ku bixin, inuu ogaado natiijada ciyaartan inay tahay inay ku guuleysan doonaan saaxiibada bannaanka jooga. balse haddii uu isog yahay xasan sheekh maxamuud inuu yahay madaxweyne dal xoreeya ah oo go'aanka iyo masiirka dalkiisa isagu uu ka go'o, halkan waa ugu bareeri karaa, waana halka ay ku xidhan tahay guusha uu kaga guuleysan karo dhinacyada kasoo horjeeda, oo halka ay ku xidhan tahay siyaasadaha uu ka sheekeeyo ra'iisul wasaaraha ee ah inay siyaasadda ku janno tegi doonaan, oo halka ay bahashaan kaga janno tegi doonaan haddii ay dhab ka tahay, haddii ay dhab ka ahayna ayba kaga naar tegi doonaan. markan kooxahan amase dhinacan dowladda tallaabooyinka ay fursadaha ay haystaan ay ku guuleysan karaan waa kuwaas. balaynu u noqonno marka saaxiibadeennii kale oo aynan cidla dhigaynin inagoo dhinaca xasan sheekhuun ka hadlayna, balguulaha ay gaari karaan ayaa iyadana aynu soo qaadanayna maadaama inagu aynan dhinacan uga janjeerin. saaxiibadan iyagu waa ka duwan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedadan. kooxahan ay hal hadaf bay gaari karaan haddii ay daacad isu noqdaan, laakiin kooxahan waxay ku midoobi karaan ma jiraan. waa saddex dhinac oo hooy u soo midoobay, haddana kala shakisan, isku beenguuraya, ujeeddadooda kursi iyo dhaqaale ay tahay, waxay ku midoobi karaan ma jiraan. saddexdan hogaamiye ama saddexdan qaybood waxay kala yihiin madaxweynaha Puntland oo dhinaca, hogaamiyaha Jubbaland oo dhinaca, iyo hogaamiyayaasha magaalada Muqdisho ama madaxdii hore ee dalka oo kala ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Cali Khayre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo qaar kaloo badan. saddexdan qaybood isku hadaf ma aha oo jiho uma wada socdaan, daacad isuma aha, way isku beenguurayaan. nin walbana ninka kale markuu salaanka ku fuuro wuxuu u diyaarsan yahay isaga inuu halkiisa ku dilo intaanu isagu isaga dilin. horeyna waa u soo dhacday, Siciid Bari iyo Axmed Madoobe ka soo dhex dhacday, xasan sheekh maxamuud iyo Siciid Bari bay ka soo dhex dhacday. halkii tareenka laga tuuray baa hadda jooga oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ugu dagaal badan uu ka mid yahay. marka kaliya hadda waxay ku midaysan yihiin la dagaalanka dowladda xasan sheekh maxamuud iyo inay meesha ka saaraan. kuwii shalayna taan bay ku midaysnaayeen inay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meesha ka saaraan, wax kale oo ay ku midaysnaayeen ma jiro. haddaba saaxiibadan haddii kala dan yihiin ayagoo isku beenguurayaan, tallaabooyinka ay ku kala guuleysan karaanna saasay ku kala duwan yihiin. bari baynu ku bilaabaynaa marka. bari sida uu ku guuleysan karo horta waxay ku jirtaa Puntland gudaheeda. Muqdisho ma taalo, koonfurta ma taalo. guusha uu dani ka gaari karo inuu maamulka uu hadda xukumo sumcad ku yeesho haddii ay u suurta gasho inuu mar kale madaxilaad kale soo laabto, waxa ay ku xidhan tahay gudaha Puntland. waxa ay ku xidhan tahay doorashooyinka qof iyo cod ee hadda Puntland inuu dardargeliyo, ka dhabeeyo doorasho lagu kalsoon yahay oo uu fursad iyo waqti fiican hadda uu haysto oo qof iyo cod inuu ka dhaqangeliyo Puntland oo xisbiya leh, inuu dhaqangeliyo Puntland xuduudaheeda la ilaaliyo, inuu dhaqangeliyo Puntland saaxiib la noqon karta ama kasban karta darisyadeeda kuwa ay xulka yihiin iyo kuwa ay nabad yihiin. Puntland xiriir fiican la yeelan karta maamulka ay dariska yihiin ee codka ah, taageeri karta, xulafo ka dhigan karta maamulka Khaatumo State. Puntland ugu yaraan ka fikiri karta qaab ay isku fahmi karaan maamulka colaaddu ka dhaxayso ee ay deegaanada isku haystaan ee Soomaaliland. ugu yaraan samayn karta haddii waxyaalo badan oo masiiriya ay ku kala duwan yihiin lafteeda inay jiri karaan waxyaalaha ay ka midaysan yihiin oo loo baahan yahay inay iska xulufaystaan siyaasadda.
puntland xiriir la yeelan kartaa maamulka kale ay dariska yihiin ee galmudug puntland dhinacyada gudaha ku jira fayraska ku ah gacan bir iskaga qaban karta siyaasad ahaan iyo awood ahaanba siciid dani guushiisu taasay ku jirtaa waxaa kale oo siciid dani guushiisu ku jirtaa inuu ka gaabsado siyaasadaha koonfurta inuu loolanka iyo dagaalka foosha xun ee koonfurta ka dhexeeya uuna ku dhex milmin sida khudbadiisiiba shalay uu ku sheegay inuu hiil iyo hoo axmed madoobe oo doorasho dadban dhiganaya la garab taagan yahay caatifadahaas inuu ka baxo sababta oo ah taas waxay sumcad xumo u tahay isaga shakhsiyadiisa ballanqaadkiisa ah inuu shacabkiisa u ballanqaadayo doorasho qof iyo cod ah maamulada koonfurtana uu ku dhiirigelinayo doorasho iscaburin oo dadban oo hogaamiye isagu isku caarashubo oo xitaa ugu yaraan aan ahayn doorasho haba dadbanaatee ay beeruhu wax ku dooran karaan sida puntland oo kale ay ku dooran jirtay ee madaxweynuhu ugu yaraan uu ahaa mid wareega ay beeraha iyo awoodda loolanka lagu doorto hadday doontaba doorasho beeraha noqoto siciid dani tallaabooyinka uu ku guulaysan karo ee uu ku hanan karo kalsoonida shacabka puntland ama uuba ku hanan karo kalsoonida shacabka soomaaliyeed haddii uu rabo inuu mar kale isu soo taago madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa taas hogaamiye axmed madoobe boqorka jubbaland ee awoodda badan ee inta badan hogaamiyeyaasha filla soomaaliya bannaanka ku cuna maxamed cabdullaahi farmaajo ka soo takhallusay xasan sheekh raqarka u saaran inuu isagana dhinac isaga riixo maxay yihiin isagana fursadaha uu ku guulaysan karaa axmed madoobe isaga fursado siyaasadeed oo fara badan oo u furan ima jiraan waa hogaamiye keliya yaqaana kursigiisa yar ee kismaayo ee 20 kilomitir sida loo difaaco haddana waa gaari taas fara badan iyo buuq badan isagu uma baaha sida keliya qorshihiisu waxa weeye inuu siyaasiyiinta ku beeguuro marka hore uu gacan haadiyo marka uu maalmo ku beeguurana uu salaankooda iska tuuro wuxuu ku soo beeguuray hadda xasan sheekh maxamuud oo uu ka soo qaatay 2 sano iyo badh iyo sanad isaga gaar ah oo muddo kororsi ah hadda wuxuu salaanka u dhiganayaa puntland iyo maamulka qaatuba state iyo madaxda kale mucaaradka wuxuu leeyahay waa in kuwaas shirka golaha wada tashiga qaranka yimaadaan waxa weeye waxaa loo baahan yahay in dadkaas la keeno haddii doorasho qof iyo codii ay dhacayso in loo dhannaado saaxiibadan ayuu mar kale damacsan yahay isagu inuu salaanka ku fuuro waxaana shubkiisa ay ka soo qayb galaan isaga marka waxaan leenahay axmed madoobe adiga halkaaga hambaliyo waxba laguma sheegi karo sida halkan aan uga hadli karno saaxiibada aan ogeyn qorshayaasha iyagu ay ku guulaysan karaan waa sayid cabdullaahi dani iyo xasan sheekh maxamuud oo fursado qaali ah haysta madaxweyneyaal soo waaya halkay soo laabtay ah balse ugu yaraan aan fahamsanayn inta yar iyo qaabsireedka uu yaqaano iyo baaswoodhada yaryar ee wax madoobe ku isticmaalo siduu kursigiisa ku ilaashan lahaa waa yandaro marka axmed madoobe isaga taas unbaa hadda la gudboon inuu jidkiisa ku sii adkaysto si uu marar kale isugu caanashubo inta ilaahay u qadaro waxaan u gudbaynaa siyaasiyiinta muqdisho maxay ku faa'iidi karaan maxayse ku guuldaraysan karaan dabcan siyaasiyiintan sumcad badan malaha badankooda horey baa loo soo tijaabiyey xiiso badan looma qabo mid waliba meel ayuu ka daadinayey balse ugu yaraan iyagana jahada ay ku guulaysan karaan ee haddii ay rabaan inay xoogaa u kalsooni ka xiraan shacabka waxa ay tahay inaanay siyaasadda guracan ee xasan sheekh maxamuud taageerin inaanay siyaasadda guracan ee axmed madoobe iyo siciid dani isugu sacabtumeen iyaga laftooda ay axmed madoobe ugu sacabtumeen inay ka soo laabtaan siciid dani iyo siyaasiyiinta muqdisho waa in ay iyagu markaan haddii ay ka horjeedsadaan siyaasadaha xasan sheekh maxamuud ayna taageerin siyaasado kale oo gaboobay oo shacabkan guuldarro u horseeday doorasho dadban isku caanashub ay shacabku ku soo daaleen inaanay mar kale dadka u riixin oo aanay odhanin halhayska guracan ee ah madaxda dowlad goboleedada doorashadooda dadban ha loo daayo taas iyagana waa inay fatay faraha kala baxaan siyaasiyiinta muqdisho oo marka ay ka hor yimaadaan siyaasad xasan sheekh maxamuud ay keenaan siyaasad waxtar leh shacabkan u hayrinaysa ugu yaraan iyagana waxay markaa noqon karaan siyaasiyiin horay baal madooga ka jiray taariikhda laakiin xoogaa baalkoodii madoobaa intay iska bedeleen bal isku dayaya ugu yaraan iftiinka rabitaanka shacabka inay taageeraan ee ah inay noqdaan kuwa u taagan doorasho qof iyo cod ah aan muddo kororsi lahayn aan doorasho dadban iyo hogaamiyeyaasha maamul goboleedada doorashadooda ha loo daayo waa inay waxaa ka baxaan waa in iyagu keliya ay ku midoobaan shacabka ku taageeraan doorasho qof iyo cod ah aan muddo kororsi lahayn waa inay shacabka ku taageeraan inaan dib loogu laaban doorasho dadban haddaba dhammaan fursadahaas aynu kor ku soo xusnay ee ay ku kala guulaysan karaan dhinacyadan uu loolanku ka dhaxeeyo ama ay ku guuldarraysan karaan dhinac kastaaba oo ka tirsan dhinacyadan loolanku ka dhaxeeyo marka la isku soo duubo wax faa'iido ah oo haba yaraatee shacabka Soomaaliyeed ugu jira halkaas ma jiraan
marka isweydiin mudan maxay yihiin fursadaha qaaliga ah ee ay shacabka Soomaaliyeed iyagu ay haystaan ee danta u ah shacabka Soomaaliyeed oo u afduuban kooxda dallayda iyaga laftooda waa ay adag tahay fursadaha ay haystaan balse waxay heli karaan fursado qaali ah oo jihada guusha ku sii hagi kara oo ay ka mid tahay in iyagu aan lagu beenguurin ugu yaraan inay fahmaan riwaayadahan khiyaaliga ah laga qarsoon ee ay maleegayaan dallayda siyaasadeed ee aynu soo sheegnay habka ay u loolamayaan sida ay u kala guulaysan karaan waxa ay ku loolamayaan inuu yahay masiirka shacabka Soomaaliyeed in intaas iyagu fahmaan ugu horreyn ayaa shacabka Soomaaliyeed oo fursad qaali ah oo jidka guusha ay ku heli karaan oo haddii ay fahmaan ay la mid tahay qofku inuu fahmay xarunka haya nooca uu yahay iyo halka uu ka hayo markaasna uu dawadiisa raadsan karo waa fursadda uun hadda shacabku ay ka faa'iidaysan karaan oo loo baahan yahay ayna lumin waayo waxaa ku soo socda maalintii kale ee madoobeyd ee shacabkan kor dushiisa lagu gorgortami jiray ee la mid ahayd maalmihii riwaayadda iyo khiyaariga iyo 4 sano ama 5 sano 15 May 8 Febraayo iyo wixii la mid ah maalin kooxahan aynu soo sheegnay ay soo kala guulaysteen oo kooxi maalin ka dhigatay midkii meesha loo magacaabi lahaa oo jihooyinkan ama fikradahan fayrasku ka buuxa xambaarsan lagu magacaabo madaxweynaha Soomaaliya ugu dambayn iyaduna waxaa jirta fursad qaali ah oo hadda uu haysto madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uu hadda dabacsan yahay inuu samaysto isbahaysi awood adag leh oo la isku halayn karo fursadda qaaliga ee hadda uu haystaa waxa ay tahay si uu uga guulaysto shirqoollada iyo dabinka ay u maleegayaan dhinacyada ka soo horjeeda oo adeegsan doona xooga kale oo shisheey madaxweyne xasan sheekh haddii uu rabo shirqoolladaas ay maleegayaan weerarada ku soo socda iyo dabinnadaas dhammaantood inuu ka baxsado oo uu dhinacyadaas ka guulaysto waxaa hadda hor taalla in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu iska soo xidho kanaalka Itoobiya sababta aynu saas u leedahay macnaheedu sal kuma laha khilaafka iyo faragelinta Itoobiya iyo Soomaaliya iyo xuquuq Soomaaliyeed inuu ka tanaasulo iyo inuu u doodo taas waa macno kale bal waxaynu ka hadlaynaa siyaasadda iyo loolanka u dhexeeya dhinacyada Soomaaliyeed ee dallayda siyaasadeed ah oo haddana dhinaca kale ay faragelinno kale oo shisheeye ku duuban yihiin haddaba middan aan u soconno waxa ay tahay haddii xasan sheekh maxamuud uuna kanaalkaas iska soo xidhin waxa ay iyaduna fursad kale u tahay hogaamiyeyaashani inay ku guulaysan doonaan inay siyaasadahan xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa iyo isbahaysigan hadda uu dabacsan yahay inuu ka dhex sameeyo golaha wadatashiga qaranka inuu fashilmi doono taas oo iyaduna ah in dhinacyadani ay dabada saari doonaan Itoobiya imaaraadka iyo dalal kale oo iyaguna markaasi dhinacaas dabada ka soo riixi doona waxaana xusid mudan markaynu tusaale u soo qaadano dagaalada xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ay la galeen dhinacyadan ka soo horjeedsada dowladda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku guulaystay inuu kanaalada Itoobiya iska soo xidho taas oo ay ku adkaatay maamuladii waqtigaa ka horjeeday iyo hogaamiyayaashii Muqdisho inay taageero u raadsadaan dhinaca Itoobiya si dhinacyo kale oo imaaraadku ka mid yahay uunay taageeradu ka iman jirin taas oo markaa caqabad gelisay hogaamiyaashaasi inay fursad u yeeshaan inay awood ahaan gelgelaan dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo markaas ayay ahayd markii kooxahani ay taageero dhalanteeda ka raadsadeen shacabka ay bilaabeen inay Muqdisho kacdoona ka sameeyaan in dowladda markaasi ay ku eedeeyaan muddo kororsi xukunka dhigitaris ah hebel uu soo bax balse ayna taasi dhab ahayn ee awrkacsiina iska ahayd iska soo baxay hadda mar kale waqtigii waa ka bedelan yahay maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku guuldaraystay kanaaladii Kenya inuu iska soo xidho
taas oo iyaduna qayb ka noqotay dagaalkii ama kacdoonkii lagu riday dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo oo aynu ognahay inteeda badan inay xarun u ahayd dalka Kenya oo madaxda hadda xukunka haysa ayba ololahooda iyo loolakoodaba ka soo bilaabeen dalka Kenya. markan xasan sheekh taas uu ka seexday kanaaladii Kenya uu iska soo xiray, balse isaguna wuxuu ku guuldaraystay inuu kanaaladii Itoobiya iska xiro oo isku furay dhinaca Carabi kaga furay. hadda markan isla jihadaasi waxay dhabar jabin ku noqon doontaa qorshayaasha uu wato xasan sheekh maxamuud iyo xulufada cusub ee uu dabacsan yahay in markaasi ay isbahaystaan. haddaba tanina iyaduna waa caqabad kale oo khatar ku ah qorshayaasha uu wato xasan sheekh maxamuud iyo jihooyinkii dagaal ee hore aanu sheegnay inuu isaga dhinacyo badan uu iskaga furay. si kastaba hadda ha noqotee loolankan hore baynu u sii sheegnay inuuna ahayn loolan wadani ah, waa loolan aynu sheegnay hogaamiyaashan qaabka ay u dagaalamayaan, fursadaha ay ku kala guulaysan karaan, ciyaarta ka socota masraxa siyaasadda ee garoonkan ay ku hardiyayaan ayaynu kaga warramaynaa. ma aha si dadka qaar aan wax badan fahmin inaan ka hadlayno wadaniyadda dalka Soomaaliya waxaa dan u ah siduu faragelinta shisheeye iskaga difaaci lahaa waxyaalahaas shaqo ku leh. taas waxaynu ku soo koobnay dariiqyada aynu kaga hadlayno in shacabka Soomaaliyeed waxa socda ay ahayn wax iyaga masaalix ugu jirto dowladnimadeeda, qarannimadeeda, karaamadeeda, madax bannaanideeda. iyada waxaynu ku soo koobnay in ugu yaraan shacabku fahmaan halka uu xarunku ka hayo. taan baa shacabka Soomaaliya iyaga fursad u ah. marka taa la gaaro ayuu baynu ka hadli doonaa Soomaaliya maxaa dan u ah, maxay ku guulaysan kartaa, fursadahay haysataa, waa casharo kale taas.